السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Halabuur Ayaan leh marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyo channelkani kulanti wacan daawadayaal sheekadeeni xiisaha badneed ee Sindibaad al-Xamaali iyo Badmaaxi Sindibaad safarkii afraad ee Badmaaxi Sindibaad iyo markii Sindibaad nolosha lagu duugay sheekada qaybtii hore waxay noo mareysay markii Sindibaad uu ka soo laabtay safarkiisii saddexaad isla markaasna uu magaalada Baghdad ku soo laabtay Sindibaad ayaa hadalkiisa ku bilaabay kadib waxaan go'aansaday sidii awalba caadada ii ahayd inaan safro waxaana diyaarsaday badeecadii aan ku safri lahaa anigoo waliba toogtan diyaarsaday badeeco ka badan kuwii aan awray ula safri jiray waxaana isku soo shubnay magaalada Basra oo aan uga sii gudubnay dekedda magaaladaas waxaan ku soo safarnay badii waxaana ahayn kuwa aad u fara badan sidii aan jidka ugu soo jirnay ayaa habeenkii dambe waxaana qabsatay dabayl iyo duufaan aad u xoogan taasoo gabi ahaanba qalibtay markabkii aan saarnayn markii uu qalibmay markabkii xoogaha iyo xawliga dabaysha ku socotay awgeed taasoo caawin xooga ka helaysay hirarkii xoogganaa ee badda ayaan waxaan noqonnay qaar badbaaday iyo qaar baddii kumaanshoobay waxaan ahayn aniga iyo qaar ka mid ah rakaabkii ila socday kuwa ku badbaaday huuri yar oo markabka saarnaa kaasoo badda ku soo dhacay xilligii uu markabka gadoomay huurigii yaraa ayaan isku gurnay waxaana bilownay inaan u jihaysano dhankii ay dabayshii naga jirtay waxaana jidka ku sii jirnay maalin iyo habeen kale annagoo ugu dambayn imaanay meel jasiirad ah jasiiraddii ayaannu ku degnay waxa ugu horreeyey ee aan baadi goob u galnay wuxuu ahaa risqi aan cunno maadaama gaajo bas la ahayn annagoo bilownay geedihii jasiiradda ka baxayay inaan mirahooda sida xoolaha oo kale u daaqno ilaa aan caloosha ka buuxino habeenkaas waxaan barinay oon seexanay jasiiraddii markii subaxii la gaaray ayaan bilownay inaan ku soconno jasiiraddii dhexdeeda sidii aan ugu wareegaynay ayaan markii dambe aragnay dhisme meel ku yaallo waxaana soo beegsannay halkii dhismaha ku yaallay sidii aan u soo soconnay oo ugu soo dhowaanaynay ilaa aan markii dambe ka soo gaarnay mar alle markaan saas u imaanay ayaa waxaa noo soo baxay albaabkii dhismahaasi nagu qabtay askar wada qaawan oo hal dharna wadanin waxayna u ekaayeen kuwa meesha nagu sugayey meeshii ayay nagu qaqabteen ayagoo noo gudbiyey boqorkooda hal ereyna ma aysan nagula hadlin waxayna bilaabeen in raashin iyo cunto kale nooc ah noo keenaan oo horteenna ayay soo dhigeen asxaabta intooda badan diif iyo gaajo ayaa ka muuqatay waxay bilaabeen inay cuntadii cunaan laakiin aniga ma aanan cunin waayo waxaan maqli jiray in mid ka mid ah jasiiradaha ay ku nool yihiin qalo majuus ah oo hilbaha dadka quuta waxayna sameeyaan markii ay dadka qabtaan ayay dharjiyaan oo siiyaan cunto nooc kasta ilaa uu qofku ka cayilo kadibna waxay quud ahaan ugu geeyaan intay qalaan boqorkooda waxaan kale oo maqli jiray in askarta boqorka ay hilibka dadka oo cayriin cunaan halka boqorka hilibka loo karin jiray sidaas awgeed raashinkii meesha la keenay ma aanan cunin askartii waxay sameeyeen in ay gooni mid kasta meel ku xiraan aniga meel gooni ah ayaa la igu xiray maalin kastana waxay ii keeni jireen cunto kala nooc ah laakiin ma aanan cuni jirin maadaama aan ka cabsanayay in ay qashaan oo ay cunaan waxaan ahaa mid raashinka wax yar oo naf lahayn ka cuna kaasoo aan nafta ku ceshanayo si aan gaajo ugu dhiman iyagana waxay ahaayeen maalin kasta midkii noogu roon oo noogu cayilan qala iyagoo qayb ka mid ah hilibkiisa boqorka u dubi jiray halka qaybta soo hartana ay iyaga cayriinka ku cuni jireen waxaan galay kurbo iyo murugo dhexdooda waxaana ii sii dheereed cabsi iyo gaajo waxaana noqday mid tabar daran oo aan naf lahayn iyagana maalin kasta waxay ahaayeen kuwo raashin ii keena ma aysan ila hadli jirin laakiin sidoo kale waxay aad ula yaabi jireen qaab muuqaalkayga iyo siduu jirkaygu isku beddelay ilaa ay maalintii dambe asxaabtii ila socotay oo dhandhammaadeen oo aniga keliya ka soo haray markii aan keligay soo haray ayay maalinkii dambe ii yimaadeen laakiin nasiib wanaag ima aysan qalin ee way iska kaysii daayeen iyagoo cunto ii soo hordhigay kadibna iga tegey markii ay iga tegeen ayaan meeshii ka soo kacay waxaana bilaabay inaan soo cararo si aan naftayda ula baxsado waxaana ahaa mid daalka iyo baahida ka badatay maadaama aanan muddo baryo ah waxba cunin sidii aan u soo socday oo marba meel ugu dhacayay ayaan markii dambe waxaa ii bidhaamay dad meel fadhiyaan waxayna ahaayeen dad asturan oo sida bani aadamka camal u labisan markii aan dadkii meel fog ka arkay ayay farxad isoo gashay waxaan u soo dhaqaaqay dhinacoodii ilaa aan ugu dambayn agtooda ka soo gaaray waxay ahaayeen dad degan jasiiradda aan joogo mid ku dheggan
ayagoo ahaa dad dhaqan ahaan iyo xadaar ahaanba ka duwan dadka jasiiraddan aan ku soo arkay. Anigana sidii aan u socday ayaan dhexda ka soo galay. Markii ay arkeen ayay ila yaabeen sida aan u ekahay una baaba'sanahay. Iyagoo inta ay iga naxeen i siiyeen baad iyo biyo, waxayna bilaabeen inaan cuno si gaajadan igu raagtay mar uun ii dayso. Markii aan cuntadii iyo biyihii isku dhammeeyey ayay i waraysteen xaalkayga iyo waxa aan ka qabanayo jasiiraddan dadka ay ku nool yihiin. Markaas ayaan bilaabay inaan uga warramo xaalkayga anoo uga soo bilaabay safarkii aan ka soo galay magaalada Baghdad, wixii badda nagu qabsaday iyo dhibkii aan kala kulmay dadka jasiiraddan ku nool. Markii aan hadalka u dhameeyay ayay igu dhaheen annaga waxaan degannahay jasiiraddan midda deriska la ah, haddana halkaas ayaan u soconnaa, haddaadna raacaysid soo bax. Sidii ayaana ku raacay. Markii aan jasiiraddii imaaday ayay meel aan dago i siiyeen, si fiicanna way ii sharfeen. Kadibna waxay ii geeyeen boqorkooda si aan qisadayda uga sheekeeyo. Waxaana bilaabay inaan boqorkii uga warramo qisadii soo qabsatay, anigoo ka soo bilaabay maalintaan Baghdad ka soo baxay ilaa iyo maalintaan dadka jasiiradda degan kala kulmay. Boqorkii markii uu qisadayda maqlay aad ayuu ula yaabay, wuxuuna ii sheegay in jasiiradda sidan doono ugu noolaan karo, isla markaasna aan u ahay isaga marti sharaf. Si fiican ayuuna ii soo dhoweeyey. Kadib waxaan bilaabay inaan jasiiradda ka howlgalo, waxaana garab siinayay dadkii jasiiradda ku noolaa, anigoo wax kasta oo aan aqaanay ka caawinayay maadaama aan aqoon badan lahaa, sidoo kalena dal aqoon ahaa. Wax badan ayay iga faa'iidaysteen. Boqorkii jasiiradda waxaan ka caawin jiray sidii uu u maarayn lahaa arrimaha dowladdiisa u gaarka ah, oo markii xaajo culus soo wajahdo wuu ii yeeri jiray, waxaana ahaa mid ka talo bixiya ilaa uu boqorkii markii dambe iga jeclaaday, isla markaasna uu bilaabay inuu iila dhaqmo sidii wasiir dowladdiisa ka tirsan.